sawirkan kuu muuqda ayaa saacadii la soo dhaafayay baraha bulshada iyo qulubta shacabka Kenyaanka aad u gilgilay kadib sawirkan xaqiiq waxa muuqatay guud ahaan shacabka Kenyaanka in qalbiyadoodii uu hantay madaxweynaha William Samoei Ruto waxa kuu muuqdo waa hooyo askariyad ah waliba gacanta ka haysata curadkeedii waxa xiga waa madaxweynaha William Samoei Ruto oo si kalgacayl naxariisi ku dheehan tahay u xambaarsan hooyadan askariyada yaraankeedii hooyadan iyo labadeeda carruur iyo ninkeedii waxay ku noolaayeen hoyga ku muuqda ee jiingada aan xamili karin habeenkii inuu ka celiyo qabowga daran ee dhacaya maalintiina aan ka xamili karin kuleylka iyo dabeesha socota madaxweynaha ayaa si kadis ah wuxuu u ballan qaaday in uu siinayo guriga dabaqa ee waliba casriga hooyadan riya aysan waligeed ku riyoon ayaa maanta u rumowday waxa la geeyay dabaqa casriga kaaga darane sida loo naqshadeeyay in daraandarka ayaaba ku dilaya kaaga darane waxa la dhigay agabkii lagu seexanay jiifkii oo dhameystiran haddii aan lahayd kii carruurta iyo haddii aan lahayd kii ayada iyo xaajigeedii kaaga darane fadhiga isan waligeed ku riyoon ayaa loo dhigay TV-ga casriga ayaa loo dhigay kaaga darane jikadii agabkeedii oo dhan waa loo dhameystiray xataa cunadii ayaa halkaa loo dhigay qofkii ugu horeeyay ee gurigeediina ay ku casunto wuxuu noqday isla madaxweynaha waa riyo isan waligeed ku riyoon bal fiiri sawirka maxaa ka quruxda badan ee shaaha u shubayso guud ahaan shacab weynihii qalbiyadooda iyo qulubtoodii ayuu madaxweynaha daqiiqad kaliya sida ugu hantay wuxuu kaloo isla madaxweynaha ballan qaaday xilli uu soo booqday askartii midkii 50 sano ka weynaada in loo bilaabi doono lacag talo Kenya ceermiya ka bilaaban doonto waxa ku saabsan guud ahaan muuqaaladaasi farxadda iyo reenta leh ayaan kula wadaagi doonaa muuqaalka xiga halkan ku muuqata waa magaalada Hargeysa waxa lagu xiray mid kamida macallimiinta dugsiga Quraanka oo laga keenay gobolka Togdheer ee magaalada Burco macallinka waxa lagu soo eedeeyay inuu ku soo geystay mid kamida carruurtii oo Quraanka baray halkaana waxa kaaga muuqdo waa guud ahaan macallimiintii ku noolaa magaalada Hargeysa oo mudaharaad waliba dhaliil habaar culus hawada u mariyay cid walba oo gaf email ka dhac u geysatay guud ahaan macallimiinta Soomaaliyeed ee Quraanka bar wixii halka ka dhacay xog ku saabsan guud ahaan muuqaalkaasna waan kula wadaagi doonaa warar hor leh ayaa waxay ka soo kordhayaan kiiskii qarracanka lahaa ee murugada lahaa macallinkii gafka u geystay carruurtii yaryarka ahaa ee Quraanka baray ee ugu dambeyn laamaha amniga xabsiga u taxaabeen qaar kamid ah macallimiintii oo ka warbixiyay fikirkoodii ka dhiibtay iyo dhaliishii iyo siday u difaaceen macallinkoodaba waxaan kula wadaagi doonaa qaar kamid ah waalidiintii carruurtooda halkaa ka baratay oo ayagana ka falceliyay guud ahaan intaansan muuqaaladaas u gudagelin haddii ay sataa booqashadaada ugu horeysay waxaynu si xushmadi ku dheehantahay kaga codsanaa walaal inaad ugu soo biirtaan oo aad channelka subscribe noo saartaan sidoo kale waxaynu si xushmadi ku dheehantahay kaga codsanayaa qof walba oo muuqaalka daawanaya bal inuu laagta iyo shartiisa u keen dartaan si guud ahaan muuqaalkeenu u gaaro bulshada Soomaaliyeed soo dhawaada saaxiibayaal halkan waa magaalada Hargeysa waxa lagu xiray mid kamida macallimiinta dugsiga Quraanka kaas oo laga keenay gobolka Togdheer ee magaalada Burco macallinka waxa lagu soo eedeeyay inuu ku soo geystay mid kamida carruurtii oo dugsiga Quraanka wax ku baray halkan waxa isugu soo baxay guud ahaan macallimiintii dugsiga Quraanka ee magaalada Hargeysa ayaga oo halkan ka sameynayay mudaharaadyo waliba dhaliil iyo habaar culus hawada u marnayay cid walba oo sharafka iyo karaamada macallimiinta dugsiga Quraanka meel kaga dhacday bal waa kan sidii wax u dhaceen ayro daawan macallimiinta xidhan ee dulman cidii dulmiday ilaahay masiibaha ku rido xanuunada ugu xun ee adduunyada dadku ka cawdaan ilaahay ha ku rido beerka iyo kaliyaha iyo xubnaha ummadu ka dhaqaaqday lixda laxaad ba Allah ha tiro aamiin igu caawiya ilaahay waxaan weydiisanaynaa ilaahay ducada ha inoo aqbalo muuqaalka xiga waxa soo taraya warar hor leh kiiskii qarracanka lahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo macallinkii ACC kamerada duubtay asagoo fal anshax xumo ku sameynaya qaar kamid ah carruurtii iyo waxbaray macallimiintii ka falceliyay ee dugsiga qayb ka ahaa
ayaa siyaabo kala duwan kaga falceliyay. qaar leh annaga muuqaalka markii aan daawanay waxaa nooga soo baxday macalin iyo caruurtiisa calaashaan ardaydiisa oo faraka ciyaaraya, halka mid kaleetana uu leeyahay sheekadeennu waxay ahayd maadaama dhacdadan ayd markii ugu horreysay ee aan aragno aan maqalno inaan sheekada si hoose aan u dhammayno, laakiin mar kaliya ayaan waxaan ku baraarugnay baraha bulshada oo lagu falanqeynaya sidii wax u dhaceen. haddaba miyuu macalinka ku saxnaa inuu yiraahdo sheekadu waxay ahayd inaan si hoose u dhammayno? miyuu ku saxnaa mase uu ku qaldanaa? bal marka hore labada macalin fikirkooda iyo sida ay kaga falceliyeen wixii halkaa ka dhacayba ayaan u daawano. macalinka waa wareejinay qaybaha amnigan ku wareejinay arrinkan arrin nagu cusub waay ayadoo weliba xalkeeda la taagan yahay ayaa qof naga dhex bootiyey. marka qofkii naga dhex bootiyna allah wala maamulka xalka u taagan iyo arrinkii la falaqeynayo mid soo ku dhacay ilaa kuwa laga wada hadlaayo ayaa arrinka bannaanka loo gudbiyay arrinka sidoo ku dhacay. haddana macalinkii laamaha amniga ayuu ku sugan yahay, amniga ayaa gacanta ku haya, amniga ayaa banoo yimid, macalinkana fartaan ka saarnay. anaga ahaanteena qof kasta wuxuu la muuqdaa Soomaa anaga wuxuu nala muuqday qof ilmihi la fara ciyaarayo ma kastay xumo sameeyay ilmo muuqdo qof dhaqan xumo sameeynayo dabcan waxa laga yaabaa ani aad inaan isku aragti naqanin ani adiga inaan hal shay hadaan fiirino halka shay waxa laga yaabaa ani aad inaan isku si aanan u arkin laakiin muuqaalka dadka si adag baa lagu falceliyay ma kastay waxa la sheegay in macalinka wax dhaqan xumo uu sameeyay wallahi soo aragtaa anaga naftirkeena horta seedaba horta aanan macallimiintana loo ogoleen in wax la dhahayo isku soo dhawaasho. haddaba dadkii ka falceliyay waxaa ka mid ah hooyadan Soomaaliyeed ee ku muuqata oo sheegtay in gabadheedii ay dugsi quraankan geysay ayadoo 6 jir ah, haddana ay tahay gabar 15 jir ah quraankiina ku baratay, intaana isan wax dhibaato aysan ka soo gaarin, laakiin wixii shalay ka dhacay halkan ee cabsi hor leh ku abuurtay. bal waa kan muuqaalkeeda ayaan u daawano. وحومة مدرسة وحكا دعاي أنا وأنا مجيء حيدر عمر حاجي مدرسة أنا وأنا يجي دكسي أنا قرآن كصابرت وأكو حفظية شريعة كقاطي قبل هذا وجد إذا لحسن جرت دكسي عن لكينه هذا وعشان يتوانجر قرآن ويأكل ما يسوي وأكو حفظي إلى الآن كان دكسي واحد قطع هذا شعور تدوك عسنتا ورتمكو فرح سن دكسي مقالك مركان أركتين توالدينهان محاضر أنت والله هذا أنا حم مقالك مركان أركيد دنا وحكي سيحما إن لصيفة فيه أو براه برشة لصيدي هذا وحنا كعد سنة تدوينها إنه وحن كتر ترامش وحن بين مال أبور إنه يهي وبين إيته. معلمين تينا واجد دقيقة جرتي معلمين تكورن عن شو سوها. ما شاء الله معلمين آتي وناس هذا نسيدوك المعلمين أنا يجد أنا مع الحيدر على ده دكسيال بدنا صوت دقيقة ودكسيا وأنا دقيقة جر معلمين ذاك هاي معلم جبران مع العمر معلمين بدنا يصير شقي جرني. معلمك ما شاء الله آتي أخون آت وين أولياء جبران غف أنا ما أنت معلم إيه ما هو ولا الكي اشتوك عليه. hooyadan ayaase ka mid ah hooyooyinka carruurtoodii ee dugsi quraankan wax ka baranayeen laakiin daruufihii u saamixi waayeen maadaama isla xaafadii ay ka guurtay. bal waa kan ayadana falcelinteeda iyo wixii ay ka ogtahay dugsi quraankanba ayaan daawan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان وحنك سلام يا معلمكين معلم جبران معلمين كلامك معلم عمر شريف معلم عمر أنسار أنت كسلام يا معلمين شرف القاية له وحواي دكسي ورتوجه كده عيادة وهم هاي شخصي أكيد ديسي on sukneen waa shakhsiyaad sameeyay marmarka qaar indhahina wixii arkayaan been weyn xan karaan faanteen marka waxaan bariyaa Soomaali Maxamed inaadan boonboonin dugsi xamar saan miya dugsi saan kam miya aadan dhihin wareeda farahan Ilaahay jilka ma dhigin dugsi waa dugsiga ilmaha ay dhigan jireen aad wax ay soo fahmeen faanteen marka macallin Jabraan iyo dugsigiisa yaa loo gafin dugsi xamar dhan yaa loo gafin walaalayaal maxaa idinka khaldan war iniga wax yariis aad aragtaan ma boonbooninaysan. haddaba wararka qaar ayaa sheegaya in gabi ahaanba albaabada loo laabay dugsi quraankii ee shalay musiibada ee ka dhacday. wixii warar dheer kiiskan ka soo kordhana muuqaaladeena xiga ayaan idinkula wadaagi doonaa. muuqaalka xiga saacadii la soo dhaafayay waxaa baraha bulshada iyo qulubta shacabka Kenyaankaba aad u gilgilay waliba qalbiyadii ka xadayba sawirkan ku muuqda. haddaba madaxweynaha dalka Kenya ayaa talaabo bogaadin mudan qaaday kadib markii oo gabar askariyad ahna hooyo ku nooled guriga cariishka ah u raray guriga dabaqa ah oo waliba casriga taas oo qayb ka ah mashruuca dawladda
ee guryaha loogu dhisayo dadka danta yar. siyaasadan uu wato madaxweynaha dalka Kenya ayaa ah mid kumanaan qoys oo dakhligooda hooseeyo looga saarayo nolosha adag, iyadoo oo dowladda Kenya ee muujisay inay mudnaanta kuwad siinayso sidii muwaadiniinteeda u heli lahaayeen hoy, sharaf iyo nolol tayo leh. bal sidii wax u dhaceen, sida dareenkeeda hooyadan Kenyaanka oo isku bedelay ayaa ah mid aan malaayiin la siisan hataa wariyo aysan weligeed ku riyoon, ayadoo run ah ay maanta la kulantay guriga cariishka ah ee qabowga habeenkii aan loo dulqaadan karin, kuleelkii iyo dabeesha maalintiina ay ka daran tahay. ayuu inta gurigeeda ku soo booqday, ayuu guud ahaan wixii halkaa yaal waxay ka soo qaateen carruurtii boorsadii buugaagta ee waxbarashada wiilkeedii curadka ah ayay gacanta ka haysaa. waxa daba socda waa madaxweynaha dalka oo weliba yaraankeeda si naxariis kalgacayl jacayl ku dheehan yahay u xambaarsan, weliba dhoola cadeynayo guriga quruxda badan ee casriga ah ayuu dhex keenay. bal waa kan sida ay wax u dhaceen, dareenkeeda say u cabirtay, sida ay u faraxsan tahay, sida ay u qoslayso. wax la siistaan jirin ayran dawan. Yes, hapa ndio naishi. Hello. Isaac. Habari yako? Uko salama? Ian David. Yes, sir. Habari boss. How are you? Nimeshtuka ni hapa youngest. Unashangaa nini inaendelea leo hapa? Nyumbani? Yes. This one is young. Oh my. Hello. Okay, asante sana. So, we are so very happy. Sasa tunahama. Ni kuhama. Kuhama. Asante sana. Okay. Dylan. Yeah. So you now have a new home. Oh my goodness. Very good. Yeah. Wow. This is your passport. Yeah. Mother of boys. Okay, very good, very good. So this is very good. I am very happy that this morning you are moving from a uni hut to So a house. a very comfortable one. Yes. Yes, sir. Yes. This is exactly what we undertook under the affordable housing program. We have a program for institutional housing. So for our police officers, we said we are going to do 17,000 units. So that in different parts of the country. So I know many of them are in different stages. Did you give? We gave away the ones in Meru. In Chuka. In Chuka. In Chuka. Last time the officers are very comfortable. Yes. Okay, my friend. Yes, have a cup. Some tea. I'm very happy that more officers are going to move into this building. And not just you here. I think we are doing this across Kenya, from Turkana all the way to the coast. We are using the Affordable Housing Fund. We are giving some decent housing to not just Kenyans, but also public officers, including our security personnel.
It's a very positive thing. We really appreciate it. Yeah. Thumbs up. Okay, good people. Thank you. Barikiwe kabisa. waxaas madaxweynaha ka ahaado haddii kala yaraantiisii ka saqiiro madaxweynaha ayaa isla maanta wuxuu soo booqday booliskii wuxuuna halkaa ka jeediyay khudbad farxad gelisay waliba laab qaboojin u ah dadka da'aada ah waliba askarta ah dalkoodana muddo sanado ah qabowga iyo kuleelka u taagnaa si dalkooda shacabkooda iyo familkoodaba nabad ay ugu ladaan wuxuu yiri askarta da'dooda 50 sano gaartay ee howlgabka ahna lacag ayaa loo bilaabayaa aniga ma dhihin asaga ayaa afkiisa ku yiri inta fahmayso inta aan fahmayna hadda warka waa idin hormariyo madaxweynaha wuxuu ballan qaaday askari walba oo 50 sano gaar warkiga midin galay intii uu dhexda ku dhumi lahaa oo u lugayn lahaa laga yaabay magaalada uu ka soo jeedo asaga oo aan waxaysan halka uu dib u laaban lahaa in la siin doono tiimane waxaa madaxweyne ka ah hadii kale yaasir maxaan dhihi karaa bal waa kan af jooga looma adeego mudane soo dhow askari wote wale ni constables kama mtu amefikisha miaka 50 na bado yeye ni constable wote hawa wakuwe promoted kwa sababu sasa miaka imesonga waende nyumbani at least na kakitu wasipotelee hapo katikati daawadayaal waan filayaa ugu dambeyn hadalada quruxda badan farxadda ku dheehan tahay ee ka soo yeeray madaxweynaha William Samoei Ruto inaad si wacan u daawateen shacabkii qalbiyadii iyo qulubtoodii ayuu hantay waxay noo muuqatana 5 sano ee nagu soo food leh iyo doorashada soo socotaba inuu halka waliba si degdeg ah fudud aan la gaari karin oo ku qaadan doono qalbiyadooda iyo codadkoodaba adi maxaa kaaga baxay ficilada uu sameeyay madaxweynaha aragtidaada qaybta hoose ee commentiga ayaad nagu cabiri kartaan alaaba ku maasin daawashada muuqaalka haddii ay tahay booqashada ugu horeysay mar kale waxaynu si xushmad ku dhaantahay kaga codsanaa walaal inaad nagu soo biirtaan oo aad channelka subscribe noo saartaan sidoo kale waxaynu si xushmad ku dhaantahay kaga codsanayaa qof walba oo muuqaalka daawanaya bal inuu laagta isharti soo keendar si guud ahaan muuqaalka inuu gaaro bulshada Soomaaliyeed mar kale waxaan idin xasuusinayaa inaad soo booqataan YouTube-keena kale ee Moha iyo Aisha Family fadlan qaybta commentiga ayaan linkigiisa soo dhigi doonaa ku dhufo si automatic ah wuxuu ku geey doonaa channelkeena Moha iyo Aisha Family halkaana waxaa ka heli doontaan muuqaalo ku xiiso geliya muuqaalkan mid la mid ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaaliya nabad